waxaan ka banaan bixaynaa shidaalka oo sare u kacay oo cidna aan waxba nooga qabanaynin marka dawladda waxaan ka codsanaynaa haddii inay ganacsatada la jirto iyo in ay macnaha annaga nala jirto aan ogaanaynaa shucuurteena saasaan u banaan ku soo baxnay sababta ganacsatada waxay nagu haystaan fursad macnaha waaba gumaysi waaysan waddamadii dariska ahaa waxaa lagu daray 10 senti iyaga waa boodeen 85 kor ugu boodeen hal mar marka ma ka yeelayno mana ka yeeli doono ilaa oo nalaga dhimayo shidaalkana inta ma kala iyagaa la weydiinaa waxay ka dhigan tahay waxayna ay ka rabaan anaga maynagu ciidaysanayaan kaa yeeli mayno mana ka yeeli doono aniga horta guddiga bajaajleyda ninkaana guddoominooye ha ahaato aniga bajaajley haddaanaa nin kastoo amniga liddu ku eh inaan iska qabanaa diyaaru nahay inaan dukaan dhibaatayna ma rabno inaan dhagaxtuurna ma rabno inaan miraajiyuna ma rabno bajaajley waxaa idiin sheega haddii dhibaato geysataan waa nagala guulaystay aniga ra'yigeena canshuurteena bixinaa canshuur bixiyaalaa nahay ra'yigeena dhiibanaynaa inay ganacsatada dawladda nagala hadasho waa in yar dagaalka intoo socdo keedkeedana way haystaan shidaaley basiine godsilan waxaa la yidhi basiine waxaa waaye keed ma galo inta anaga ku noolaa karna inayna siiyaan noo khafiifiyaan aan doonaynaa waxaa u soo baxnana waxaa waaye inaan kala shaqaysano caasimaddan bilicdeeda inaan jijibino uma soo bixin ma fahanti inaan wax dhibaateedna uma soo bixin inaan laamigaas jiifano baaqeen ugu dambeeya waxaa waaye ganacsatada iyo dawladda inay isku laabtaan ee shacabka ay u daneeyaan qofna raacaysana male mootada beecii hore lagu raacaa nus doolarkii hore lagu raacaa tobaatii shantii hore lagu raacaa shidaalkana jeebkeena ka baxa saddex doolar ku shubtay $4 shaqeeyey $1 maxay qabataa $3 way dhamaatay $4 shaqeeyey anaga lugta wax ku raadinaa waan wareegnaa lugtana shidaalka qaaliyo noqday maanta maxaa ka bixinsan walaal saab aniga horta maanta shucuurtana aad u kacsan tahay dareenkeena lama soo koobi karo waxa aad uga caawinaynaa saaxiibow oo uga caawinay usbuucna ka caawinayna wax kala maan shidaalka ahayd wadamada dariska shidaalkooda waa ognahay heer kala maraa min 7 senti kan ugu badan 10 senti oo ku daray in anaga $1 shidaalna lagu daro adeertaa yeeli meeno idinkana yeeli meeno leenahay waxaan u sheegayaa dadka ganacsatada lacagtan anaga nagu kordhisan ilmihiin ma siisan kartaan oo xajka ma aadi kartaan walaalow xaaraantaan imaan ilaahay u ogaan quraay waxaan dhihi lahaa dadka ganacsatada ilaahay ka baqa zaad sabkara kaga dukataan ina shidaalku nagu qaaleysaan xaq maan namana qabato cabashadeena maanta anagoo sooman suxuurkeena dhan naami wax oo suweena haytaa cabashadeena dhiibanayna ganacsatada weena soo tashatay dawladda wax ka qaban leed mar hore wax ka qaban leed wadaman kale isku mid maahan wax yar oo sintiyaala lagu daray laakiin baashan double kasi double waa wile hal dood 7 danta leeyahay maxaa inaan la ciideystaan yaraan dadka oo si fiican loo ciideystaan ma baande waxaad anagana ma yeeleno mana yeel doono mana doonayna ku dhaay kaliya waxay naga saxraa iiday naga saxraa ilmahoodii oo awal Yurubta ay sigeysteen ay hadal ciid ka daba direen ana waxa leeyahay ilaa shidaalka dhibic ayd laga dhigo ama dhibic 7 laga dhigo ma istaagayno mana joojiyno barnaamijka oo na socona $15 ajar ku wadna $15 ajar ku wadna $15 ashidaal ku bixino oo ninka geeriskana $1 naga qaato mana qabataa ganacsatada haddaan aniga mootaaleynahan waa noo tashteen waa dhig miiratayaal masaakiin haddaanan waa naga faa'iidaysaan shidaal waa haysanaa oo keedkeen waa kana dikadu yaalla ilaa hadda wax isticmaalayno ma jiro nimanka ganacsatada dawladda naga qaban weyda annaga ayaa iska qaban